qofkii isku dara labadan miro culus wuxuu heli lahaa awood buuxda oo aan la qiyaasi karin. Gabriel Agreste oo ahaa sharwadaha ugu weyn ee taxanaha kartoonka miro culus wuxuu doonayay inuu awooddaas isagu helo. Wuxuu isticmaalay butterfly miro culus si uu u dareemo dadka leh shucuur xooggan kadibna uga dhigo adeegayaashiisa. Sidaas ayuu Hawk Moto ku noqday. Weiss oo xilligaas ahaa kuwamiga Master Fu ayaa u sheegay Master Fu in miro culusyadii ay galeen gacmo khaldan. Master Fu oo ahaa ilaaliyaha miro culuska wuxuu bilaabay inuu raadiyo qof uu ku wareejiyo ladibug miro culus iyo catnoir miro culus maadaama uu sii gaboobayay. Kadib waxaan la kulannaa jilaha ugu weyn ee sheekada Marinette. Inkastoo ay tahay gabar firfircoon oo dadka u naxariisata, haddana waxay la tacaashaa kalsooni darro iyo isqiimayn hoose. Waxay sidoo kale noqotaa mid aad u wareerta marka ay ag joogto Adrien, wiilka ay jeceshahay. Adrien waa moodel caan ka ah Paris, waxaana jeclaada ku dhowaad dhammaan gabdhaha. Laakiin inkastoo uu caan yahay, ma aha qof isla weyn, wuxuuna mar walba diyaar u yahay inuu dadka caawiyo. Waxaa sidoo kale jira gabar la yidhaahdo Chloe oo iyaduna jecel Adrien. Aabbaheed waa duqa magaalada Paris, waana cadowga ugu weyn ee Marinette. Alia waa saaxiibta ugu dhow ee Marinette, waana qofka ay ugu kalsoon tahay. Mar dambe waxaan aragnaa Marinette oo Master Fu ka badbaadinaysa gaari ku sigtay inuu ku dhaco. Adrien isaguna wuu caawiyaa Master Fu. Waana halka ay wax walba iska beddelaan. Markii Hawk Moto uu dareemay shucuur taban oo meel u dhow ka jirta, wuxuu diray akumagiisii. Akumagu wuxuu galay qof wuxuuna u beddelay Stoneheart. Master Fu wuxuu Marinette iyo Adrien siiyey mirakuloosyada isagoo ugu mahadcelinaya caawintooda. Markii hore Marinette way ka cabsatay Tiki, laakiin ugu dambayn waxay isu beddeshay ladibug. Adrien isaguna wuxuu isu beddelay Catnoir. Labadooduba waxay u dhaqaaqeen inay joojiyaan bahalka. Kulankoodii ugu horreeyey kuma aysan guulaysan, balse ugu dambayn way ka adkaadeen bahalkii oo maalintii badbaadiyeen. Si kastaba ha ahaatee, waxay ogaadeen in ladibug aysan qaban akumaga markii ugu horreysay, taasoo sababtay in dad badan oo magaalada ku nool ay iyaguna isu beddelaan bahalo. Ladibug iyo Catnoir ayaa mar kale iska kaashaday dagaalka, ugu dambayna waxay qabteen akumaga. Laga bilaabo halkaas, Catnoir wuxuu bilaabay inuu dareen jacayl u qaado ladibug. Laakiin ladibug ma jecla isaga, waxay jeceshahay Adrien. Qaybta xigta gudaheeda.